Hello guys, halkani waa Higgs Technology anigana waxaan ahay Maxamed Xirse. Maanta hadduu alla idmo waa muuqaalkeeni labaad oo ku saabsanaa Camtasia Studio. Waxaan ku sharxi doonaa sida video loogu jarjaro looguna soo saaro Camtasia Studio. Markaa rabtid in aan muuqaal ku jarjarto Camtasia Studio, marka koowaad waxaa muhiim ah inaad dooqatid muuqaalka nooca uu yahay. Haddii muuqaalkaaga uu yahay screen recording, waa inaad soo duubtaa screen recording kadibna halkan ayuu ku keenayaa. Haddii aad rabtid inaad muuqaal diyaarsanaa aad jarjartid oo wax ka bedeshid, marka koowaad waa inaad maskaxda ku haysaa qaabka aad ka dhigi doontid muuqaalkaaga, kadibna aad soo gelisaa muuqaalkaaga. Sidee ku soo gelin kartaa? Midda koowaad waa inaad dhahdid file Camtasia Studio-ga kadibna import media. Midka ku xiga waxay weeyaan in dhahdid control I. Mid ku sii xigana waxaa weeye inaad dhahdid meesha ku muuqata import. Kadibna inaad dooqatid muuqaalka aad rabtid inaad wax ka bedeshid. Marka aad sidaas sameysid, halkan ayuu soo dhigmayaa. Meeshan markuu kuu soo dhigmo, clipping-ka ayaa lagu magacaabaa. Waa soo jiidaysaa, halkan ayaa keenaysaa. Ama asagoo meeshiisa yaal ayaa waxaad leedahay right click kadibna add to the timeline. Markuu sidan halkan usoo dhigmo, muuqaalkan wuxuu diyaar u yahay in wax laga bedelo ama wax lagu daro. Waan gartay. Maxay tahay waxaa rab inaan ku bedelo? Bal muuqaalkan waxaa rabaa inaan ku daro intro-ga ayaa soo gelinayaa. Intro-ga marka input soo dhaho oo soo geliyo. Intro-ga marka saan usoo geliyo ayadana waxaa dhihi karaa right click kadibna waxaa dhihi karaa add to the timeline. Intro-ga waa ujeedaan kan ayaa sikinaya, intro-ga ayaa gudaha usoo gelinayaa. Waxaan rabaa marka intro-gayga waa sidan ayuu ahaa. Waxaan rabaa intro-gayga inaan qayb ka jaro. Intro-gayga qaybtaas ugu horeyso aan bilaabo. Qaybtaas ugu horeyso oo sawirka ka muuqanaya ayaan rabaa inaan ka jaro. Marka kili ku siiyo meesha ay rabo horta calaamadan aan ku geysanaa kana i hagaya mar walba. Haddaad dareemo inuu meesha ii kala bixi weysay, kan ayaa sis u kala fogeynaya. Si fiican ayaa ii kala baxayaa. Muuqaalka waqtigiisa ayaa dheeraanaya. Halkaas oo marayo ayaan leeyahay kili ku sii. Markii calaamad si dhan buluug oo noqdo muuqaalkan, halkan ayaa fiirinaya. Halkan ay ku qoran tahay split iyo cut iyo wax la mid ah. Split-ka ayaa kili ku siinaya. Kadib qaybta aanan rabin waa qaybtan. Maxaa ku sameynayaa delete ayaa leeyahay. Keyboard-kayga ayaa delete ka leeyahay. Kadib qaybtan ayaa waxaa gaabka ka buuxinaya waa sikinaya dhinacaas ayaa geenaya. Qaybtii kalena waa ku soo dhaweysanayaa. Waan gartay. Video-gan marka uu imaado, video-gan waa video innovation qofka dhiirigelin motivation ah. Dhammaan ardayda wax barata, qof walba oo idinka mid ah waxa uu leeyahay hibo ama talent uu Alle siiyay. Waxaan rabaa halkaas markaa marayo inaad jaro. Dhammaan ardayda wax baratay, qof walba oo idinka mid ah wuxuu leeyahay talent iyo hibo Alle siiyay. Halkaas markuu marayo ayaan leeyahay halkaas igu ekay. Waa kala jara marka labadan. Video-gan halkaas ka jara. Cut ayaa leeyahay. Saas markaa u kala jaro. Maxaa kaloo rabaa? Waxaan rabaa inaan sameeyo muuqaalkan wuxuu leeyahay codkii iyo muuqaalka isku dhex jiro. Qaybtan kale waxaan rabaa codka iyo muuqaalka inaan kala qaado. Video kasta ku sameyn kartaa codka iyo muuqaalka kala qaaday. Maxaa ku kala qaadaa? Waxaan leeyahay right click separate video and audio. Haddaa fal qalad ah sameeyo oo inta aan ka sameeyo, control Z waa dhihi karaa oo aga noqon karaa. Waxaan kala aga noqon karaa meeshan oo la dhaho undo. Sidaas ayuu ku soo noqonayaa. Markaan rabo inaan muuqaalka cod kala qaado, right click kadibna separate video and audio. Waan gartay. Waxaaba ii qalmi waayay muuqaalkan qaybtiisa background-ka ah oo hadda u jeedo ayaa ii qalmi weysay. Maxaa ku sameynayaa? Click ayaa ku siinaya waa iska delete-aya haddaa u baahdo.
haddaa u baahdo qayb ka mid ah inuusan iga soo muuqanina qaybtaasaa wadaya, qaybta markaa gaaro ayaa kili ku siinayaa, separate-ka ayaan tegayaa meesha ah, split-ka ayaa tegayaa, split-ka ayaa kili siinayaa. Kadib qaybtan ayaan nacay soomaan, delete ayaan leeyahay, del keyboardkii ayaa ka deleteyaa, keyboard calaamada del. Haddii aadan keyboardka calaamadiisa del ka dhigi karina, meeshan ayaa kadkaas meesha ku qorantaa ka siinaysa. Okay, intaas markaa baranaysid maxaa baratay? Videoga iyo codka sida loo kala qaado. Yes, waxaa baratay videoga sida loo kala jarjaro, qayb iyo qayb looga dhigi karo Camtasia Studio adoo isticmaalahay. Waan gartay. Waxa ku dhiman ayadana maxay tahay? Video waa kala jartay, videogii codki waa ka bedeshay. Cod videoga ma soo gelin karaa? Cod, yes, cod kaligiis waa soo gelin kartaa. Media inta laga soo geliyaa cod. Aniga hadda cod ma haysto oo gooni ah, laakiin cod kaligiis waa soo gelin karaa. Kaba soo qaad videogan, video ayaa waxaan ka rabaa cod. Videogan background ah, videogan ayaa soo gelinayaa, open ayaan leeyahay. Video marka soo geliyo, right click, add to timeline aan leeyahay. Halkaan uu soo galay. Sidan marka uu soo galo, videoga waa kana intuu ka soo muuqanayo shaashada screen. Laakiin videoga ma raba, aniga waxaan ka rabaa codkaan rabaa. Bal aan shido. Waa music. Musigaas ka rabaa marka. Right click ayaa leeyahay. Separate video and audio waa leeyahay. Qaybtan hoose video waa deleteyaa. Qaybta kalena codkii waaye. Waa sii deysanayaa. Understand? Inaa fahanteen aan jeclahay. Waa gartay. Bal aan isku soo gaabiyo. Halkaas waa laga soo gaabiyaa, marna waa laga dheereeyaa. Waa isku soo gaabinayaa videoga iyo codka. Marka videoga codkan dheer u jeedin ay soo gelinayay waa kuwii hore. Marka hore markii ugu dambeeyay ay soo gelinayay. Waxaa sameynaya marka asi uma baahni, kadkaas ayaa leeyahay. Laakiin videogan cod waa soo gelin karaa, codka waa saari karaa, videoga codka waa kala qaadi karaa, video qayb waa delete karaa. Waa intaas wax ugu weyn oo video editing loo sameeyaa. Waxaa soo haray codka. Codka kan oo kale codkan waa kala baxsan iyo video. Codka raba inaan wax ka bedelo. Audio ayaa leedahay. Halkan ay imaanaysaa. Meeshan codka waa gaabin kartaa, codka inta waa ka dheereyn kartaa. Haddaan cod meeshan u rabin oo silent u rabtidna, silent yaa ku dhufan kartaa. Sidoo kale halkan waxaa sameyn kartaa codka mixer inaa ku sameyn kartaa. Sidoo kale waxaa sameyn kartaa noise-ka waa laga bixinaa, enable noise removal. Ma garanaysaa? Intaas markaa sameysid, videoga codka waa ka bixisay, videogii waa jarjartay. Waxaa muhiim ah marka videoga meesha ugu dambeyso, videoga codka inay isla socdaan oo isla dhamaadaan. Haddii isla dhamaanaynin, meesha uu codku ku egyahay tagaysaa, highlight wada saarey labadooda, highlight sida loo wada saaraa, control adoo qabanaysid labadooda kili ku siinaysaa. Kadibna calaamada split-ka jaraysaa, qaybta aad rabina iska jaraysaa. Intaas markaa sameysid, waxaa sameynaysaa video produce. Video soo saaraysaa. Halkan ayaa tagaysaa. Produce-ka ayaa produce video and share. Ama waxaad tagi kartaa file, kadibna video produce ayaa leedahay. Produce ama waxaa leedahay control P. Okay. Halkan ayaa kili ku siisay videoga nooc oo rabo inuu kuu noqdo aad dooranaysaa. Kadib waxaa leedahay next. Kadib magac ku qoro ku leeyahay, waxaa ku qorayaa tijaabo. Kadib meesha aad dhiganaysid geeyo ku leeyahay, waa geynaysaa. Waxaa sameynaysaa waxaa leedahay produce. Kadib videoga maxaa sameynaysaa finish ayaa leedahay. Wuu bilaabayaa inuu video soo saaro. Waxaan jeclahay inaan cashirkan wax badan ka fahantiin.